السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. liiska dalalka Afrika ee aan laga helin cudurka coronavirus iyo sababta keentay. Haddaba coronavirus waa cudur aad safmar ugu noqday adduunka, iyadoo adduunka ay ku noolyihiin 180 dal ayaan laga helin 6 dal. 6 dal oo ka mid ah Afrika dal Afrika ayaa ka mid ah dalalkaasi yaroonaya ee aanu gaarin cudurku. Waxay kala yihiin South Sudan, Burundi, Sao Tome and Principe, Malawi iyo Lesotho iyo Comoros. 6 dalna ma haystaan waxay wax ku baaraan. Haddaba 6 dal waxaan ka bilaabanaa South Sudan. Dalka Koonfurta Suudaan ayaa dagaal sokeeye ka socda ma dhoweyd u joogsaday oo heerkiisa caafimaad uu aad u liito, iyadoo laga digay haddii uu dalkaasi cudurka gaaro inaan waxba laga qaban karin adeega caafimaad oo aad u kooban dartiis. Burundi waa dalka labaad ee aan haysan isaguna go'doon ugu jira xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi awgeed ayaan sidoo kale weli laga soo warin cudurka coronavirus, wuxuuna hadda isku diyaarinayaa doorasho guud oo dhacaysa bisha May 2020. bisha Mayna oo bishana ku jirno. Sao Tome and Principe waa jasiirad yar iyadoo aan laga helin wax kiis ah oo ku saabsan coronavirus oo aanay haysan baynaysan awoodin bayna haystaan baaritaanka cudurka. Malawi waa dal kale oo aan weli laga helin cudurka coronavirus mana haysto dalkaasi qalabka lagu baaro cudurka. Lesotho waa boqortooyo ku dhex taala dalka South Africa, waxaa lagu soo rogay bandow 24 saac iyadoo aan laga diiwaangelin wax kiisas oo la xiriira cudurka. Comoros, jasiiradda Comoros ee ku yaala badweynta Hindiya ayaa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka waxaan laga helin wax kiis ah oo la xiriira cudurka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa ka digtay in coronavirus uu saameyn xun ku yeelanayo adduunka ama Afrika haddii aan la iska xil saarin in laga hortago, waxaana Afrika ugu wacan inuu kiisaskeedu yaraadaan inuusan haynba wax lagu baaro ama qalabka lagu baaro. Haddaba waysan haysanba dalal badan. Dalalka ugu daran ee Afrika oo cudurka coronavirus saameynaya waxaa ka mid ah South Africa, Algeria, Burkina Faso, Masar, Morocco iyo Tunisia. Coronavirus oo sababay in dunida ku faafto daawo been abuur ah. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digtay in la iibsado ama la gato daawooyinka tirada beenta ah ee la xiriirinaya cudurka COVID-19. Baaritaan dhowaan la sameeyay ayaa sheegay oo muujinaya in ay daawo been abuur ah lagu iibiyo wadamada qaaradda Afrika, iyadoo arrintan looga faa'iideysanayo baahida ka jirta suuqyada caalamka, gaar ahaan xilligan oo cudurka coronavirus uu dunida ku faafay. WHO ayaa sheegtay isticmaalka daawadan oo ka dhalan karo xaalad caafimaad oo halis ah. Mid ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa sheegay in daawooyinkani been abuur yihiin, ayaa sheegay in Hindiyana ay haatan xayiraad saaran tahay. Labada dal ee sameeya weeyaan Hindiya iyo Shiinaha. Isla usbuucii ay hay'adda caafimaadka adduunka WHO ku dhawaaqday in cudurkan uu yahay safmar ayaa waaxda booliska caafimaadka Interpol u qaabilsan dambiyada la xiriira daawooyinka been abuurka ah. Haddaba wadamada caalamku waxay gacanta ku dhigeen maro yar oo afka lagu duubto sida loo yaqaano mask, kuwaasi oo la sheegay inay wax weyn ka tarayaan cudurka COVID-19. Ka ganacsiga sharci darrada ah ee sida kuwa been abuurka xilliyada ay jiraan dhibaatooyinka caafimaad ayaa muujinaya inaan marnaba dan laga lahayn nolosha bini'aadamka. oo ay yidhi Jorgen Stob. Daawooyinka Afrika laga isticmaalo waxaa saameeya shirkado laga leeyahay dalka Hindiya, hase yeeshee wadamada qaaradda Afrika ayaa siyaabo kala gedisan waxaa haatan u saameeyay cudurka coronavirus. Shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa sidoo kale dhibaato kala kulmaya qiimaha sii sare u kacaya ee waxyaabaha laga sameeyo daawooyinka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.